xisbiga macaaridka wadani iyo xisbiga kulmiye oo isku fahmi waayay kulana u socday sidoo inoogu waramay wariye Cabdinaasir Talasame xildhibaan Xuseen Axmed Ciidid oo kamid ah hoggaanka sare xisbiga macaaridka wadani oo shir jiraayad ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in lagu guul daraystay sidii looga midho dhalin lahaa kulama maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ay ku lahaayeen xisbiyada kulmiye iyo wadani isagoo tilmaamay in arrintaasi ka socon weyday mas'uuliyiinta ka socotay xisbul xaakimka talada dalka ee kulmiye waxa uu yiri nasiib darro waxaan halkan idin sheegay idinkiyo bulshooyinka Soomaaliland ba in labadii qodob midnaba aan heshiis ka gaarin commission kan inuu tago oo commissionkii doorashada inoo qaban lahaa uu yimaado runtii markaasi oo ka adkaaday qoladii kale hawshaasi wataan ilaa intay bisha November kaga dhamaanayso hasi wataan hawshii oo dabadna 12 cisho iyadoo doorashadu ka hadhay commission kale ha yimaado de aqli ma aha doorasho taay ugu qabsoonaysa aqli uma aragno markaas isagu halkaas xisbiga kale iska taagay mid labaad waxa weeyaan in si siman loo soo qaybsado iyadana mararka qaar kood waxa aad moodaysay si dheer in run ahaantii ay u hadlayaan oo aan kordhino shantii hore aanu haysanayna halkii hanoo yaalaan saddex xisbi haddana mid laba xubnood ha qaataan oo sidaana kulmiye toddobaha ku yeesho wadana labaha ku yeesho aaraada ka soo baxaysay bay kamid ahayd marka halka waxa ka muuqanaysa inaan laga runtii diyaar looga ahayn dhinaca in waxay doorasho inuu qabsoonto ama isfaham doorasho inuu qabsoonto inay ka timaado halka diyaar looga maaha Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.